اللهم إنه لا حول ولا قوة إلا بك لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا نسألك بميسور الأمور كلها ونعوذ بك من معسورها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إخواني الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. waxaan isugu nimid halkan inaan rabbigeen xusno subxaanahu wa tacaala لأن ربنا سبحانه وتعالى هو أحق من ذكر. cid haddii la xusayo kan ugu xaqnimo badan waa rabbigeen jala jalaaluhu. maxaa yeelay rabbigeen jala jalaaluhu waa kan abuuray inagoon jirin, inagoon ka dalbin oo aanan weydiisanin, inagoo wax xaq ah oo aan horay ugu lahayn aysan jirin. rabbigeen waa kana haysiiyey weeye ee adduunyadanna keenay, intuusanna keeninna noo sii hagaajiyey, dhulka noo sii goglay, cerka noo sii saqfay, buuraha sameeyey, geedaha sameeyey, dhulkaas weyne intaa la eg laba casho gudahood ku sameeyey, buuraha iyo khayraadka iyo barakaadka laba kale, cirarka iyo waxa ku dhex jira oo dhan oo aan la koobi karin, bani aadan ahaan marka la yidhaha aysan ogaan karin. cilmiga ay bani aadamku horumar kaste iyo technologies kaste iyo taqadum kaste ha yeesheen, cilmiga ay u leeyihiin cirarkay waxa ka sarreeya waa dhibic dad loo bardhigay weeye. waxay og yihiin waa dhibic, waxa aysan ogeyn ee ka maqanaysan garanayn oo min cilmi illaahi ah waa sida badda oo kale. dadkii xataa mukaashafaat alghayb la siiyey ee qaybiyaadka qaarkood ilaahay nebiyadii uu u tusay, wuxuu aha nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo nabiyullaahi khadir, sida jumhuurtu ay qabaan inuu nebi ahaa weeye, kastoo dadka qaarka ay dhaheen cabdun saalix buu ahaa. markii sheekadii dhexdooda martay suuratulkahfi ilaahay uu noogu xusay ee nabiyullaahi muusa marinta su-aal la weydiiyey, dadka yaa ugu cilmi badan, isagoon ilaahay u nisbaynin oo cilmigaan ilaahay u nisbaynin, ilaahay unbaa og, isagoon dhihin wuxuu yidhi anaa ugu cilmi badan. dee wayna ula muuqatay inay saas tahay, leanna nebigii markaa jiray buu ahaa. marka arrintaasaa lagu canaanto, waxaa li nin kaa cilmi badan baa jira, nin iga cilmi badan baa jira, marka waa inaan cilmigiisii raadsadaa buu yidhi on doontaa. waa tii dabadeed meel loo tilmaamay, halkaasaad ku helaysaa. marka waa meesha uu ilaahay leeyahy fawajadaa, isaga iyo ghulaamkii muusa calayhi salaam oo wada socday waxay heleen cabdan min cibaadina aataynaahu raxmatan min cindina wacallamnaahu min ladunna cilma. callamnaahu, inagaa barnay baa ilaahay leeyahy, min ladunna, cilmi min ladun ah oo min cindina ah, oon takasub iyo barashayii lagu gaari karin ee xaggeenna ah ayaanu barnay oonu siinay. oo cilmulghayb ka mid yahay meelo badan oo haybka ah. waaad la socotaan oo sheekadu siday u dhacday, oo doontii ay wada raaceen oo weliba ay baryeen dadka ay dhaheen nagaarsiiya. waa tii uu markiiba jabiyey doontii oo halisba ay galeen. hadii nebi muuse daahiru shariicu ilaalinayey akii ku canaantay, yidhi maxaad sidan u yeelaysaa, ma dadkan annaga noo ixsaan falay eena qaaday bilaa nool nagu qaaday baad haddana doonaysaa inaad doontoodii ka burburiso. horay marka heshiis u kala galeen inuusan wax su-aala isagu muuse uusan weydiin. waxyaalahan falayaa buu yidhi, waxyaalahan falayo ilaa anigu aan ku warramo adigu waxba hay weydiin. waa adkaysan waaye muuse calayhi salaam, ila daahiru shariic oo la burburinayo arkayaa. marka
wuxuu yiri sootaan isku ogeyn yaada waxbay weyd mar raalli ah uu yiri waa ka raali geliyay tu ka daran buu marka sameeyo ilmo yar ayuu burburiyo dilay kaw ilmo yar ayuu waa badilay tana ka darneedo tan hadii waa muskari way aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsi laqad jita shay'an nukra shay munkar aad falxun badati war muuso sootaan isku ogeyn waxbay la isweydiin marka wuxuu hadana bal cudur daarisi midii ugu dambeysay haddaan su'aal dambe kula imaado waa kala tagaynaa markii dambana waatii meel gidaarsi te qolo u yimaadeen horta martii soo weydiisteen qoladii qolo xuno bukhale ahaayeen waa u diideen laakiin nabi sallallahu gidaarsi dhacaya buu toosiyo oo maxaa nimankan ugu xisaan falaysaa gidaar kugu toosinaysa aseeyashida manca ka qaadatay ilaa iyagu waa noo diideen inay naswariyaan ya قال لو اتخذت فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا أجر بفوق هذا لأن يقبوا أن ديدنين إن مرتقليان مركا خضر وكيكوير عليه السلام بس واي ونور دماتي تاسع يسوق دبي شيء صدح هذه القصة وقور رمي إنه بأمر الله وكسميه دون أن علمك إلهي وحا هرتو ذاها لأن ما نكتي ظالمه قال أو وحل وحي دونه هي سليمة xoogayo qasab ku qaadanay laakiin haday jaban tahay iska dhaafay marka wixii jaban wali iska daaya oo asaas oo kale saasa keentay tan kalena ilmahana saasa u khayr badnay labadiisa aabo saalixiina fi ilmi ilaahi waxa inuu noqon doono nin duqyaanaho kaafiraho mujrima sidana asna u khayr badan labada waalidna u khayr badan fi ilmi ilaahi ba saas ka helay tan kalena labadooda waalida saalixiinaha wa kana abuhuma salihan abud ba salihah ساسا ماركتي جدار الروسي سوحوي وجري مالك أن ماركتي أن ودريالي وحن سمينا وما فعلته عن أمري ده إلهي بك ورمه جل جلاله وما فعلته عن أمري وخدري وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا وكم النبي عليه الصلاة والسلام شيء رحم الله موسى عدو حوغي نو صبر لها علوم فربضا ما نمشى كهل الهيلو أو غيبيات كاكوسابسا وحن وجه ذي مركب oo qisadu hadda halkan ila gashay nabi Muuse alayhi salaam iyo Khadir alayhi salaam iyagoo doonta iyada asaaran baa shimbir doontii ku istaag ku soo joogsaday shimbir badda dhexdeeda markaasuu afkiisa ama minqaarkiisu la galay badda dabadeedna dhibic yar oo biyo ah ayuu soo qabsaday marka Khadir wuxuu yiri Muuse oo cilmi baad leedahay أنا أقول هاي لأن موسى معناها معها إنه كان جانب كستك علمي بدني علمي بضم بدنا وأنا قرني أنا وحن قرنا يا علمي هذا هو قرني لكن أنا علمي يا كاجا هدي اللي شو جايو أو في جنب علم الله لو بربر دقو علمي إلهي لو بربر دقو علمي يا كاجا وحنقنا يا دبيع ذا يا بدأ أنت يا شمبرك وبدك قاتي أيوة علمي يا كاجا ونقنا يا علمك إلهينا أن قارنين أنمون أوجينا ذا أوجينا بدأ بيها كهراء وكلوي وهذا موسى وهذا خضر عليه السلام جون يبون محي شيء المرك حقي جوجان يا تكنولوجيا كسته يهور مركزته يملك الصولة صوفنتو يمكرسكوب كستولة فرو ما لب واحد مقلشة وحال لهلي حدك بان لهلي ولي أن لهلينو أو intaasoo milyan oo goor kaba sii weyn qorraxda intaasoo milyan oo goor dhulka ka sii weynay wax yar dad joogto waxaad maqlaysaa ma mid kala la sii helay waligiin ba sii wada wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima shaa samada inta la eg ee waxa soo cilmiga ee waxa soo awooda ilaahay ku dhaxjo khalaqaha rabbul alamin wa huwa ku abuuray fi yawmayn laba bari kaliya laba casho bas ba ilaahay ku sameeyay دولك يا عركة 6 مالموت ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب وحي جواب كتعي لمن إلهي آذو أفأتك ولغود إلى يومنا هذا ويهودي وحي يستاهلان الله متأيه لمن كاس أي واحد هن إلهي مالنتي أحد دولك يا عركة أبويتانك يسب الله بي maalintii jimcadana waa dhammaystiray 6 bari
maalintii sabtida ahaydna dhibkii soo gaaray wuu ka nastay bay dhahay yani in ilaahay dhib soo gaaray oo maalintaa sabtida uu nastay bay sheegeen marka ilaahay waa u jawaabaya wuxuu leeyahay walaqad khalaqna الsamaawaati wاlأrضa wamaa baynahumaa waxaanu ku abuurnay fii 6 أyaam 6 beri gudood wamaa masanaa nama taabanin min luguubin min tacab nama taabanin oo wax dhibaatoo naga soo gaaray halkaa ma jiraan culimmaduna waa kuwa noo sheego waxay dhaheen xataa 6daa beri samayntooda waa tartiibtaa khalqiga ilaahay ku barayey maalmahana ka samaysmayey wax arrin aanan annaga ogeyn baa ilaahay wajeeday maahayne allahu jala jalaaluhu kun buu kulli shay ku sameeyaa shayguu doono kun ahaw ayuu odhanayaa oo horuu ka ahaanayaa uma istawaa ila asamaa'i wahiya dukhaanun samada iyo waxaa ku jiro o dhan oo wada qiiquun ah baa ilaahay wuxuu yidhi faqaala laha wuxuu ku yidhi walilardi iitiyaa kaaleya sidaan rabo anigu u kaale طawcan aw karhan idinkoo ogol iyo idinkoo ama diida ama ogolaada laakiin ilaa wa ilaaba kaale qaalataa waxay dhaheen ataynaahe طaa'iciin anagoo طaa'iciina ayaanu yeelnay marka rabbigeen jala jalaaluhu dhibka soo gaari karaa muxuu yahay qaadirun calaa kulli shay shay dhammaantiis kii abuuray weeye isagoon jirin kii ahaysiiyey waaye marka axaqu man dukiran ka wadeey huwa allahu waa ka noo sii sameeyey koonkan iyo gurigan weyn ilan guri yar baad leedahay guriga noqol yar baad kasii leedahay in yar baad kusii seexataa weliba laakiin dhulka iyo cirku guri weyn bay ku yihi khalqigoo dhanna guri bay u yihi wajacalna samaa saqfan maxfuuda meel banaana markaad istaagto cirka waxaad arkaysaa meeshaas iyo dhulku inay meel iska qabsanayaan wax isqabsanayaana ma jiro adiga un baa laguu sameeyey inay saqaf kuu noqoto oo haawi meel cidlo un ayna noqonine guri kuu noqotaa lagugu talagalay mooye xaqiiqo dhul iyo cir iska qabsadaan ma jiro mala socotaa horta sidaas laakiin haddaad istaagto waxaad arkaysaa samadii waa sii leecataa dhulkiiba meel ka qabatay meel bana haddaad istaagto ama bad istaagto meel iska qabato waa adiga nadarkaaga waaye iyo ilaahu kuu muujinaya wajacalna asamaa'a saqfan maxfuuda wahum can aayaatiha mucriduun waa biqudrati illaahi tabaaraka wa tacaala marka rabbigeen dhulka iyo cirka noo sii abuuray aqwaadii iyo khayraadkii iyo barakaadkii aanu ku noolaan lahayn dhulka horey ugu sii abuuray kadib anagu wakti garan mayno laakiin wakti unbaa ilaahay mashiicadiisii ku dhacday jinsi makhluuqaadkiisa ka midoo oo bashar la yidhaah bani aadam la yidhaah aadam calayhi salaam awlaadiisii ah baa ilaahay mashiicadiisii ku dhacday oo kulligeen aan farac ka nahay waxa dad adduunka maanta jooga midab kasta ha yeesheen si kasta ha ahaadeen waxay say doonaan ha noqdeen kulligood aabbihi hooyo keliya wada dhan yaa ayuha nnaas dadow ittaquu rabbakum alladii kii oo khalaqakum min nafsin waaxida wakhalaqa minha zawjaha wabatha minhuma rijaala kaiira wanisa'a aadam baa ilaahay abuuray aadamna ilaahay wuxuu kasii abuuray zawjadiisii xawaa ummuna xawaa calayha asalaam ayaa ilaahay feerfeerihiisa ka mida uu ka abuuray biqudrati illaahi tacaala ilaahay wuxuu doona kii abuuro waayo inuu ilaahay bani aadam sameeyo sabab uma baahna hadda bani aadam inuu samaysmo sabab baa jirta maanta o dhan haddaad tidhaahdo ilaah baan baryaa ilaahu wiil isii hataasan sababteeda soo marin waa lagula yaabaya waxaa lagu leeyahay waxaad ilaahay weydiisanaysaa horta bal sababtii samayso oo horta bal guurso soo maad garan markaad guursato xaas yeelato kadib sababtii aad la timaado ilaahay wiil weydiiso soo saa maaha laakiin adigay sababtaasi ku qaydaysaa ay ku xidhxidhaysaa mooye ilaahay ma xidhxidho ma la socotaa inuu ilaahay bani aadam sameeyo shardi ma aha aabbihi hooye inay kulmaan inayna saa ahayn waxaa daliil u ah aadam aabbihiis yaa waaye aabbu leey aabba male hooyana male aabbana male hooyana male dhulkaasaa ilaahay ciid ka soo qaaday dabadeedna sawiray dabadeedna kawinay kun ahow baa ilaahay yidhi waa ahaaday aadam calayhi salaam haye ummuna xawaana oo zawjadiisiina aabbihi hooye midna male ilaahay aadam buu ka abuuray lafihiisa ka mid ayaa ilaahay ka abuuray way iska socotay weligeed intii ka dambaysay sunna min sunan illaahi weeye maaha waxa ilaahay qasbay laakiin sunna ilaahay jideeyey waaye nasliga bani aadamka inay noqdaan iltiqaa iyo kulan ka dhaca bayna adakar waluntha sida makhluuqaadka kaleba ay yihiin jinsi alxayawaan oo dhan markii la tilmaamo sidaa maaha
لكن يدو سلا سكسو صعوته أي إلهي سبحانه وتعالى في زمن من الأزمان وأن أدسي فوقي زمن كي النبي إن كهره أي إلهي مشيئتي سبحانه كل هذا إنه بني آدم سميه هل هو يكسميه يظن أبجري أبلا أن سميه واتقى وما يا وين عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام ونبي نبيدي أولو العزم لها شنتي نبيده هو ويني إلهي أكتيس أقول له وان شبرني تكمله عيسى عليه السلام بو إلهي مشيئتي سيك كل عضي إنه أبو رؤو كسمي مريم عليه بدون أب الآن إنه كسمي ومريم با سيدة ذبوحي أحيد عليه السلام قف يعني إلهي سبحانه وتعالى دورتي وخير بدن هو يديد أنيوتي هو يديد بقى يضع على وشو كجرت وحي أنيوتي إنه دينت إلهي أقوضه وإنه شقك لقبا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا بيتري محرر أذيك دينت هذا وحكى لشقك لقبني ما كوني يودي ويل بيموديسي اللي ويلش أنت بدن دينت وأذيك جري كبر بين نقطي رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضع وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم قبل بين نقطة ويل بين مودي ولكن كما نقولن سيد إلهي ما ركت أي أوه بيسي بيكون ديستي أو مركا إلهي وحن كامل قليلا يا بيتري يدي يذرية ذبا يدي يذرية ذبا الشيطان الرجيم واتو النبي يقول عليه الصلاة والسلام المرء شاء المرء آدم أمجره إلا شيطان كوا جوجيا مركو دغناي علوش markaad ka soo baxday jubbu ku sii horta cadaawadi shalkaas ay ka bilaabatay marka ugu horeysay wax kale intuu soo ku gaarin jubbu ku yarsiinaya waa ku duqeynaya marka hore illa maryam iyo waladkeeda mooyee maryam iyo waladkeeda ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ka aqbalay hooyadii niyeysatay oo marka iyaga ma uusan taabanin marka maryam alayhi salaam oo shaaba oo iska cibaadaysata oo adduunyo shaqo ku lahayn oo mihrabkeeda ku jirta oo rabbiga subhanahu wa ta'ala ku xiran oo ilaahay aayaad fara badan iyada naftirkeeda uu muujiyay iyadoo mihrabkeeda iska joogta zakariya kuriya alayhi salaam zakariya oo nabi ilaahay ahaa ba yani kuriyay kurinteeda lahaa oo kaga warhayay mihrabkeeda kaga warhayay wuxuu u soo galaa iyadoo cunto cajiib leh iyo fawaakih an zamankeedii ahayn لأن فواكه هذا وقتك كليلها قربا لها وقتك قبوبها قربا لها وحقوق إيمان يا فواكه أن زمن كبير دول كبجرين أو اللياب له أو أطال مريم أن لك هذا حكيت كاش ومن عند الله إلهي أكتيس إلهي واسي سبحانه وتعالى إلهي ما نسي هل كاس يسوق النبي من نبي أي هذا نوع حال كاس النقطتين عبرة إن إلهي وقادر يهي على كل شيء قادر على كل شيء هنالك دعا زكريا ربه مرك مريم عليه السلام يضو صداء أو أي مال ونسك غير كذي كي يربحذي حق بري أغير بحذي يضو رسله هذا سكسو حاجة قدتي وابا كان بجبريل عليه السلام ونن رسمه نن اسكسو لغي فتمثل لها بشرا سويا وأي كبغضي إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ذات إلهي كبقيش إلهي بان كامغان قالي لأن خلوذيدي بوغو سو قالي حاجديدي ماشي كودنيسي بوغو سو قالي marka ilaahay dadka ka baqday inuu yaani faraxumay ilaahay baan kamagan galay raxmaanka marka wuxuu yiri anigu rasuul ilaahay soo diray baan ahay dhibaatana kuma wado waxaana la ii soo diray inaan غلام كسيو لأهب لك في أكثر القراء وليهب لك في قراءة أبي عامر وقالون وغيره انت آخر شيء رب إنو كوهبي أما أنو أن كوهبي بإذن الله تعالى ولد غلام أو شيء غلام كوهري كرا أو ولد كوهري كرا لنا إمانا قرشنين ولنا إما تعبنين بغنا ما هيو ناقو ما لها سجد كذا لذا تأوحن ما أني هي سيبان ولد كوقانا مركب حيري كذلك قال ربك قال كذلك قال ربك إلهي بس إلهي هو علي هين بو إلهي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا شيء كذي كبعد واب اللوغا هل كيب علمه كوحن بارتي ولما واب يسبو خلافينه ما إسلا مركي ما يدى شيء أو أنت إسلا قاضي أو إسلا مركي يدى شيء بإيضا يوضا تغيرك بصور نغطي مسه سيدة ضدك كلا أمره بمارك تساقال بلود أي أور كذا لهاي
oo ay dhashay labaduba waa muxtamal walaakin reerkeedii oo aan ka warhayn unbay maalin wiilka ula timid wiil iyadoo wadata markiiba suu dhanni ayay hormariyeen oo waxay dhaheen waa yani yaa ukhta haaruna ma kaana abuuki imra'a sawin wama kaanat ummuki bagiya ma kaana abuuki imra'a sawin wama kaanat laqad ji'ti shay-an imra shay-aad u adag baad la timid aabbaha muusan ahayn nin xun muusan ahayn yaa ukhta haaruun ma kaana abuuki imra'a saw wama kaanat ummuki bagiya hooyadaana baqi maysan ahayno naagahan xun maysan ahayn markiiba waxaa usoo degdegay inay maaragtay marka waatii uu ilaahay maaragtay uu amar siiyey can ariiqi almalaa'ika uu yidhi adugu ha hadlin waa lagu jawaabaya adugu waxba ha jawaabin jawaabtaada waa lagaa xambaaraya yaa ilaahay ka hadal siiyey markaa iyadu ma oga laakiin waxaa la yidhi markaad u tagto reerkaaga waxaa tiraa waan soomanahay maanta soonkooduna wuxuu ahaa soon cunto keliya maahay soonka hadalkana waa ku jira yani maxna ma cunaysid haddina maysid soo saa ma ficnaan lahayd hadalkaan ugu batay beryahan laakiin ilaahay naguma ibtileen nabigaa la yidhi abu fulaan ninkaas oo markii asalkiisii hore yahuudiya ahaa ayaa waxaa la yidhi wuxuu ilaahay u niyeystay ninkaa inuunan hadna istaagin oo uun qoraxda taagnaado maalin kastana soomanaado uusan hadlinna cidna la hadlin markaa nebigu wuxuu yidhi muruuhu iska amro oo ha iska harsado waxba yuu isdhibin hana iska hadlo soonkiisana ha dhammaystiro soonkeena anagu waa cuntada iyo cabidda iyo unbaad iska dhowraysaa wixii kale lagu diiday laakiin hadal iska dhowri maysa soonkooda iyaga maxaa ku jiray hadal ma jirin hadalka waa la joojinaya ma hadlayso inii nadartu liraxmaani sawman bay tiri falan ukalima alyawma insiya saa ku dhabaaleey markii ay la hadleen oo ay damceen inay waraystaan oo sheekadan cajaa'ibta leh ay maaragtay ka waraystaanna ma ayna iyada hadleen ilmihii yaraa ee ciise ahaa calayhi salaam ayay farta ku fiiqday markaasay dhaheen ilmahani muxuu noo tarayaa muxuuna noo qaban karaa muxuuna ka jawaabi karaa wahuwa fi lmahdi sabiya waa kii ilaahay ka dhawaajiyey yidhi inii cabdullah qaala inii cabdullah aataaniya alkitaab wajacalanii nabiya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا المه يرى أن وقت الوهى اللقاري أي إنها كهذا الشيء هذا اللي محكى بالله بإني عبد الله أدون إلهي بانه هالكاس إني عبد الله هذا الكي يقول وعيسى عليه السلام يرابع محا هالكا لوغا جيدا وحا إلهي في علمه كجرتي إن بضن أي إيمان دونتو إلهي كدغان دونا والعياذ بالله إن هذا الحن أي لا إيمان دونا أو فول حن هذا العرك يدولك يبوره أي لدما وحويلي لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن إلى دلدلا عن عرك وتنشق الأرض دولكي وكلا دنبالمؤ أو بربرو وتخر الجبال هدا بوره لن إلى وذا بربران محا ساس نقول لها أن دعوا للرحمن ولدا إن الرحمن كولد النسبيين وإنهم وحبون على إله هذا الكاس فالحمديس يعليس كيس دولكا بربري قاري عركي بربري قاري بوره وإبن نقول قاري بل هذا الكائن تولي هذا كبرت كلمة تخرج من أفواههم وتو إلهي كتل مامي إلى يومنا هذا ضد هذا الكيسيد بتاعا وصيف ربنا وكوان مالها اللي جوب أي كمديهين والله منزه إلهي وحب مردلو إلهي لمردلو هو الواحد الفرد الصمد لا إله إلا هو ولد ملأ والدنا ملأ صاحبنا ملأ لا إله إلا الله وحده لا شريك له عيسى عليه السلام بين بيكو افترون يعني هذا الكي وهري وحوها إني عبد الله أدون إلهي بان آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا إلى آخر الآيات توفيق ولا لا لأنها وفجيه ربي جل جلاله وعظم سلطانه ولا إله غيره هو أحق من ذكر هذه عد لحسيه
isaga ayaa ugu awleysan in la xuso maxaa yeelay inteena meesha fadhida iyo inta adduunka maanta joogta kulligeen waxaan soo marnay marxalad dacfi iyo maskana iyo masaakiin baanu ahay maxaa yeelay si kastaba hadda ahaw mansib kastaba yeelo muuqaal kastaba yeelo meeshaad doonto ha joogto lacagtaad doonto yeelo mudiir ahaw wasiir ahaw malik ahaw waxaad doonto ahaw sow mar ma ayna jirin aad ahayd candhuuf hadday jirkaaga gaadha la iska maydho oo wasakha anigana hadlay saasaanaha idinkuna saasa ahaydeen kadibna maxaad noqotay oo aniguna aan noqday nafti yar maxay soo bedeshay xinjir yar oo dhiiga calaqa maxaa calaqa loogu bixiyay waxay ku dhagan tahay raximka hooyada iyadoon wax ku dhajiyaa oo ludfiga ilaahay aan ahayn mooye aysan jirin wax ku hayaana aysan jirin marka adiga weyn ee magaca leh muuqaal kale ee mansib kale waxa ku soo martay si aadan rabbiga hadda u iloobin waxa lagu xusuusinayaa hadalka marka laga hadlayo dad kale ha u tagi sheeko kale iyo meelo kale iyo ilmo yar yar oo meelaha isbitaalada ku dhalanaya la aaday adigu waa inaad xusuusataa waxa ku soo martay maraad ahayd xinjir yar oo dhiiga calaqaad ahayd yaa ku ilaaliyay yaa ku xifaadeeyay yaa in waxaad ahayd curda waxaad curdo u ahayd inaad hooyada socodkeeda aad iska dhacdeen yaa meesha kugu ilaaliyay soo rabbiga ma ah isagaa ku ilaaliyay isagaa ku xifdiyay isagaa markaa iyada ah waxaad u baahan tahay ilintan miyaad u baahan tahay inaad kortaad u baahan tahay khalqiga un saa un ahaan maysid xinjirta ahaan maysid wax kale isu bedeli doontaa waxa aad u baahan tahay oo dhan rabbigaa baa ku siiyay markaa iyada marka yaa uga xaqle inaad xusto isaga huwa xaqu man dhukr xaqu man dhakartahu hu yani markaad calaqa ahayd isaga calaqa ka ku abuuray isagana ku ilaaliyay haddana maxaad isu bedeshay in yaroo hilibaad noqotay bacda alcalaqa maxaad noqotay in yaroo hiliba mudqa baa laga tilmaamay mudqa waa inta hal mar lacantuugo kale in yaroo hilibaad ahayd yaa kaa dhigay hilibka allah ومع ذلك واكو إلهي كبعدنا لفها جيبنا يقولها كسمي هيكل كان أدو سمي سنتعي لفها هرمري لفها سإلهي سمي بعلم الله بوكو سمي لفها مضى حاجة يقوى دامن كاجة يقوى ماركت اللقنط هذا يفعلها يلغها يقعمها بإلهي تاجي كبعدنا هلب بادوش إلهي كسيساري كبعد سهم بإلهي دوش كسيساري علمي فربضا أو آذوين هي خلق دقيق أبوريتان دقيق وهو عجيب له وانت سو ملايين أو شرايين أو حديد أو يرير أو وحكا لساري كلا يسجري أي إلهي كقول حبوري أبوريتان كاس وإلهي كو أبوري ماشو كو أبوري متغان سدح مجدي هوستود إربد ما سمين كران دادكو إيغو ميل مجدي جوغا ما سمين كران ما هيني ما بأركي كرام إربد ميل عده دي لغتور وقل مجدي يا سوق بان كران يا الله رب العالمين سدح مجدي هوستود أيو كو أبوري أو كو صوري وخلقها كاملة يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 سدح مجدي هوستود ومجدي علوشة هي كان مشينك أندير تميع يا ومادة لزجة وحيدهن دad كان آد وسير دحقلي وحوغي إلهي كبري حكولين مادة إيادة بيهاس إيه من نهرتا هدان إلمه أين كوهي قارسانين من نولادين مادة إيادة ومجدي إيادنا رحمكي أو المقالينكينا ومجدي كلا سدح لاس مجدي هوستود با إلهي كوغو صوري أو كوغو سمي أو خلقها تام كيالي أو كامل كادغي أو دبدنا نفكو الشيء إلهي نفكو الشيء واكو نولي هذا نفلي نقطو آد نولاتينا عنتادو باهانتها يا عنتكو كينا بريسي باستمرقو كرنا يا هدين لكو كريانا معونه سيدكو عونه حقا لغو سوى مالي مكو إلو من ربك كما إلو بين رزقي بو كسيي قود بو كسيي أديقا كو قلمة حضونتا أفكا ومركا ولي مشاقين أفكا ولي مشاقين الكمالي هيد أفكا مشاقين ولي مرضانا قاقبا حضونتا إلهي محوسكو حري من دعيرك هويدا أي أسكو حري هل كاسا يوحي دونتا يدعو ليسا هل كاسا إلهي كوسو مريني سبحانه وتعالى وكو قوديني مدبن هل كاسا قود كاقوها من لغا شاقشتا ماذا أقول لولو هجرودي ودم الله تغنى ماذا أقول
lacag darbi lagala soo baxana maad aqoon soomaad garan dukaan la galo alaab laga soo jiblaystana maad aqoon waxaasoo dhan shaqa kuma leh yaa ku quudiyey markaa soo rabbigaa ma huwa rabbuk الرب وكلمة عظيمة وكلمة كم معانا أسماء ذا إله أنت كالوردن يذا كم معانا صراحة أنا دارت هذا الشيء لأنها وحي على قل لهذا هي تربية هذا على قل لهذا هو ربك ولذلك الصلاة أنت بدن وحد إلهي كل خطاب يسار ربوبية الحمد لله رب العالمين بعد هذا هذيك ربي بكويه عالمين تا أدون جوجو ودن ونلاش كل وذاقنا ربي بقوله واحد أركتي واحد أنا أركب هذه واحد أركت وحكم بدي حيوانات كنيو كذا شبرت عير هذا أوفير سطو وديابس سيقولوا شيء ما كذا أركت وديابس هذا كون في المانتن وثائقية اللي علمية سنة صوده بمكرنة حيوانات كي شبرها يبضها والله والله يا أبا وحنا نمك وحا صوده بي هذانا أن ربي قدو السجودين أن لا إله إلا الله له وأهل عجيب له وحي كسي فوالا يا إلهي جدوا وكسي بضليس وديابا إسا مركا أي صوت دوبان سيدا أيوة بل شمبرتا يا بري قرس اللور دسو يا إنجنير نبدا حقيقة براتي اللي قرق أي دنا سيسو إنجنير دي أدوك هلا يعني سيقول سيسو هل كان سيتبع إسا وحاسي سوق بصر إسا على مها سيجيدها واسكو يد قري واحد لسا إسا سميكة أو قوية أو روبك يدبيشو إسا قليل أو أدك أنا وانا أركي ما غنينا دي لا أركتين إنكاري gudaha haddaad farta geliso meesha ay ka duleeliso kor ma albaab kor uma hoostu ka duleela haddaad farta geliso waxaad u tagaysaa furaashkaaga aad ku seexato ka jilicsan wallahi furaash jilicsan oo riishkeeda maaragtay baalasheeda kan jilicsan bay ku gogoshiinayaan meel ay ka keento maaqa riish waxaad u tagaysaa furaash jilicsan oo layin aad u tagay yaa arrintaas faray yaa sameeyey yaa baray xagee ka baratay هو رب العالمين سو أديك كو تربية أيوة أنا لو تربية علمها كيف تحي سيدوك الأولى الله ولي بمركاسا مركي لغاسي الشيء كي علمي هذا الله يعبيسه قيدها مركي أي قرية كل جنيش أصفول الشجرة كما سميش يعني الشجرة ده قيدك جريه سكر كرو مسكو سو غاري كرو قسمين مش لا مهاس فوق ما ركتي يهدو مسكو هذا وكل عين هل كاسي كل جنيش markaasaa wax goyn karaa iyo wax agtiisa iman karaa aysan jirin yaa baray cilmigaas ila allah shimbiraha qaarkood waad la yaabaysaa waxay samaynayaan yani waxay soo qaadanayaan waxaa jira xasharaad waxaa jira habeenkii nuura yaa yaqaan baadiyaha ma ku aragteen baadiyaha dadkiina tagayaan ha waxaa jira xashara duusho oo nuuraysaa jirto iftiin bixinaysa yaa kaara madhaha soo kaara bidhaan wataas dadkii baadiyaha aad u arkay anigu waa arkay baadiyaha waa tagay waa arkay waa arrin cajiib la way adiga waxaad ku samaysanaysaa male soo ma shimbiraha qaarkood intay kuwa soo qabtaan ay wax isku daraan ayay iftiin nal bay ka dhigtay habeenkaas oo dhan waa iftiimay ma rabta mugdi inay ku noolaato nalkaasay ku jiraysaa habeenkaas oo dhan iftiin waa faman callamaha huwa rabb العالمين رب العالمين هو رب العالمين الحمد لله رب العالمين باتك بالله مركات ركوعنا محاضرا سبحانه ربي العظيم بادر سبحان ربي جاي بادرنا يسا العظيم بيقولنا بتنزيه مضر مركات كعد سمع الله لمن حمد معك كعجل ربنا ولك الحمد مركات سجودنا محاضرا سبحانه ربي الأعلى مركات كسو كعدنا محاضرا ربي اغفر لي انتاس إلهي ويسوق لي كرتا محل وقلي واي لأن الربوبية لها معنى خاص بأذيك أكوتاي إن تربية هذه خصيصة إلهي با تربية هذا سرنت عليه دتك كلودن وإسكا يعني مجاز واي أبها يهويدا با دتك وسو خيغو markaad calaqa ahayd waxba kuma qaban karin xalooshu hooyada markaad ka soo baxdayna wixii ugu horeeyay dadku ay kugu bilaabeen waa maxay inay xididkaas gooyaan xididka wala gooynay xididkii ama uu ku soo marayay raashinku waa laga gooy raashinkiina reerka maalintaas bariis iyo basti iyo hilib ay samaysteen ma cuni kartid ilkaba malihid rabbiga ma ku iloobe marka maxaa dhacay marka sheegade waa taqaanaan maxaa dhacay يا
ها أنا كوي متسمى أنا هشلي هو إذا مي ودي محا إسكو بيجي صوب حدا هذا أديك أنا هاي ما تنكر سو تربية ما سو إلى هنا كو تربية ما يا حتى ما أنت حدات كو كتسون تهي الشقة ما أنا كشقة يستاهي درب على العكلة شو بودا ما هل أنت إياه كقودي ورأن له برجع كقودي أم برزقها كان ما تهي الرازق من إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قوة المتين سبحانه عنه هو إذا مركي المير أهيد أما قبر ير أهيد أما قاشانتي أهيد أما كذا أهيد أما أور لهيد عنها مجري عنها سوحي صوبح المركي هذه الصوبح عنه صوبح هنا ماشاس عنها سيدا اللغة صوبح صدو وعملية أذك وايا بس أرين سهلة معها هذه لو واحد صور التي أذو وحبك لوين والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء بربي عليه لا تعلمون شيء ما تغني وحلو حدوك تعمل سومالي ما تغني في إنجليز وركيش بجوج هذا سيد كل شيء كان واقع عنها اللي سيد كور يا ما دورن كرت وحكوا بري ربي إن أدويدو مركز أدويدو والله واقع جيسين هو يدي وقالنا سنة واقع جيسين هاي سيلقوا سنة عنه dadka adduunka joogo dhan haday isu tagaan inay ku baraan halkaas waa la nuuga caana laga soo baxa ma wadi kara ya qurumaha midoobay soo ma jiraan kuwa leeyahay qurumaha midoobay iyo kuwa kala tagay haday isu tagaan inay ilmo yar ay baraan meeshaas caanaha ka mudmudso kala soo bax ma wadi kara hadii waxay wasaa'il التواصل وابغان تهيبه ayaguna waxba kuma sheegi karaan adigina waxba ma fahmi kartid soo ma kana wasaa'il الاتصال ma bajiraan si wax loo ma la fahansiin karo marka yaa ku baray halka ina caana kala soo baxo allah rabbul alamin saga ku baray wa rabbiga fa huwa alladhi rabbak anihi bu kusi meeshaas ku soo xiray uu ku fahansiiyay meeshan caana laga muudsado wax kale kuma qalme الكم أدليه وما بهني الكهذا ظهر له وإذا بعد ذي لهيت سمات قرنا ومركع الكوما بهني نراشين وويل وقومة تلقني شيئا فشيئا واتكرتي ضدك وحكو كوريا يهربكو صودا هذا ما أركان لكن وكوريسا كوب عيسى ما أنت إله أوجاد عنه يدا إن كسي كافتومي سو حدا أتكم عرقتي هذا كسي أتكم مرمش إله الكوكوس وصاري الكان هري يجرين وجنسي جارة أهو جركا عن كم ذهين وواحد لقوا قياسي واحد يهين أنجري بايله كوسو صار أو يعني قيبة كده قيب وسيلة سيرته وكذا ثنايا بالليلة حبال لقوا قصة هيلب كي ألابتي لقوا قصة شو ما تقول ثنايا يكون اللحم لا ما قيبنا ومعدة ويانه والأنياب بالليلة حبال لقوا جبيها هذا واحد لجبني شيء هذا دجال بيسي استعماله شيء ومضع بيليه قيبنا وأدراسته وجوسه ماشين كإن لقوا رتقبة إلهي وترى أقسامتها يا سمي ورب العالمين قيول بماشى أي كوابونتها يبقى إله سمي أنت أبو مركب عنيس ويكون معنتها لكن في نظر الناس دتك بناك الجوجة وبشع وأرم فرح لذلك إله الجوسها ماشى كور مكين الجوسها ماشى كور أنتو كان دت كورتيس وكو قري حاجة هو سبوا جوسيه راشين ككو تكون تقلهاي إله مال أسطورم بوكي هذا أنت صورنا وحاول حياة عرب أو دحية لسان ليدا وجرع سنو ما قرنا يساعو أما ندحثه ذكر دحية وأنا واحد كوانين وسيفه وكله ودقين وخطر لكن عرب كي يجي مي استقالان مر ونقف وندع ما هنا يا اسمه دقالان ما جرت سبحان هذا أنا سوى اسكعنا يساعو راشينك وكل راح يساعد واحد وقتها الملك ترتيبته يكون سمي رب العالمين هو الذي ربك ما ننتي الكاو كوسو صاري آلة مضغ الطعام نأوكسيي هذا أنا عنتدي سجى كسي هم ملاين هذا واويناتي عليه هو إذا يوم بهني مركز ضدك إيراه راشين إيه وضدك راشينكم ما هي راشينك إلهي عنتدي إلهي بسيم عنتدي إلهي بسمين أدونك ضدك الجوار ما أنت هذا سوتها حبت بريس ما سمي كرا حبت مزجاء ما سمي كرا تام الله سبحانه مش هو فصلنا مش هو سديدنا مش هو فصلنا أنا ومر بدنا أردت أقول العلي وودي وحدي إذا ما أركن حتى ذات كان أو قال ذا المسلمين تهي وودي كل جوا فقسين ذات كلن هذا يسوي تجان حبة بريشين اللي جميل كذا حبة واحدة
hal xabo masaka hal xabo galeeya ma sameyn karaan haruur yar ma sameyn karaan faakiha yar ma sameyn karaan xabad muuse ma sameyn karaan idan raashinka yaa sameeyey allah fahuwa rabbuka alladii rabbaak markaad yarayd baad u baahnayd intaadan abuuritaankaaga intaan lagu abuurin baad u baahnayd markii calooshooyada ku jirtay waad u baahnayd oo rabbigaa waa isaga markaad ka soo baxdayna huwa rabbuk marka aad istiri aad dhaqaaqdeedu xarakaad u baahatayna xarakada ilaahay baa ku waafajiyey maadan aqoon hadda maanta inteena meesha fadhida khaasatan kuwa yaryar hadda uma jeedeen inteena meesha fadhida nin walba waa fadhiya waa si caadi u isaga fadhiya laakiin ma la socotaa fadhiga aad fadhiisanayso inta bilowda ay qaadatay si aad u barato ma xusuusni ani waa niloobay idin kore waa iloobeen laakiin reerkaaga haddii maalan hooyadaa weydii naftirkooda maalintii fadhiga aad baratay maalin faraxay ahayd iyo reynreyn oo wiilkaygii maasha allah fadhi barad buu noqday baa la yidhaha fadhi barad buu gaadhay fadhigii buu bartay waad fadhiisatay ka bacdina markaad kac istiri waxaad ka bilowday inaad laabta ku saqo waad gurguuratay kacbaa istiro waa kuftay intaasoo dhan yaa ku hayay yaa ku soo tarbiyey bilaahi calaykum marka rabbigaasi miyuusan mutaysan in had iyo goor aad xusto oodan iloobin ood jeclaato jacayl ka badan yaa jeclaanaysaa man axaqu bixubbik yaa uga awlaysan hadda maanta aabbaha iyo hooyada maxay dadka kaloo dhan kaaga xaq badnaadeen dad kale haddaad isgaftaan ama isu timaadaan ama kale isdiidaan maa fi mushkila laakiin aabbaha iyo hooyada haddii aad ku xumaato waxaa weeye waa arrin xun oo ummadahoo dhan ay isku waafaqeen inay arrin xun tahay caaq qofku hadduu noqdo allah naga koriyey aabihii hooyadii ku xumaado oo ama hadal xun ku yidhaaho haddii waa arrin fool xun maleesh lianna waxay ku ixsaan faleen mar aadan adigu waxba u tari karin mar aadan waxba u tari karin waxaa leeyihi nin baa kacbada hooyadiis intuu xambaaray kula dawaafayay hooyadiisoo da noqotay oo lafalafo noqotay buu intuu tunka saartay buu la dawaafay waana aragnaaba hadda marar badan marka hadda aan joogno maka dad badanoo hooyadooda xambaarsan ama aabihii duqa xambaarsan marka ninkan uu ku dawaafay sacyigii buu soo mariyey waa faraxsan yahay nin sheekhu marka ku yidhi ma u malaynaysaa inaan xaqii hooyaday aan gutay xaqii hooyada igu lahayd inaan gutay ma u malaynaysaa maadaama intaasoo dhan aan xambaarsanahay markaasuu yidhi maya waxaana maya kuu leeyahay buu yidhi iyadoo waxay ku xambaarsanayd iyadoo noloshaada jecel adiguse waxaad xambaarsan tahay adigoona ilaahay goormaad igu asturi doonta adigood waa xambaarsan tahay iyadu markay ku xambaarsanayd cidna mayna ku lahayn ilmahayga xaqayga ma guti laakiin adu maanta inta yar markaad qaaday waxaad tiri hooyaday xaqeedii ma gutay marka isku mid ma noqonaysaan walidaalika hal aayad laguma hayo fi lgaalib yani ilaa qaliil oo ilaahay uu la dardaarmayo waalidiinta oo uu leeyahay awlaadiina u baarinimo fala liannahu dabiicaday ka mid tahay labada waalid ilaahay baa ku abuuray la socotaan ilmuhu marka ay dhashaan ay yar yihiin waa wada dhib socda walidaalika inta badan aabbayaasha waa soo wada maray hadda meeshan dadka fadhiya baday aabba waa leeyahay inta badan waqtigaas waa isaga tagnaa soo ma miskiintaas hooyadaas iyo ilmahaas baan isaga tagnaa guriga joogaanna waa ka tagnaa waqtigaa isaga waqtiga aad ugu dhib badnayd weeye dheef ma lihin waxaan dhibahayn ma lihin haddaan ilaahay raxmad una qalbiga hooyada uusan gelin in badan maalin kaste waxaa meelahan maaragtay qashin qubka sanduuqyada qashin qubka ilmo badan baa loogu tegi lahaa ilmo badan loogu tegi laakiin ilaahay maxaba iyo kalgacayl iyo xubbi cajiib leh baa ilaahay qalbigooda u geliyay marka waxaan ka wadaa waalidiinta xaqoodu saasuu u noqday ilaahay hadiyo goor ula dardaarmaa insaanka an ishkur lii waliwaalidayka labada waalid wabilwaalidayni ixsaana laakiin inta badan maba jirto mar uu ilaahay leeyahay bii hooyadu ilmaha u ixsaan fala lianna dabiicadeeday ka mid tahay marka qaarkiis markii la isqabqabtay iyo walwaalidaatu yurducna awlaadahunna xawlayni kaamilayn sheeka isqabashaa markay timaado unbaa laga hadlaa xuquuqda ay ilmahani u leeyahay laakiin inta badan ilaahay wuxuu ku waaniyaa addoommadiisa bal uu ka dhigay bacda shukrihi ilaahay mahadnaqa kan ugu weyn isagaa iska leh huwa rabbuna rabbigaaga xaqiiqigaa waa isaga muxuu ku xujiyey alwaalidayn liannahu waxay ku ixsaan faleen iyagoon waxba kaa rajaynayn adiga waxbaad u qabanaysaan aan islahayn soomaad gar
مركا لذلك أحق من ذكر هو رب العالمين ولا للرب جان سين كجاري كرنا طريقيس طريقة أن رب جان أمرينه أن رب جان كجارينه الرضيه سان كهلينه رب جان نوغر على نقنايو وطريق واضحة أو مغضة نبي جان نوت المامي حديثه قدسي جاءها إلهي أكسر رويي إلهي باله جل جلاله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولي أولياء إذا كمله ولي جيجاء نكي لعلوبو أجو وحان كو إعلامي أو كو شيري أو كو ورجلي إن أنا كل الدجالمي إلهي عدو الله الدجالمي مسألة وجو سنكرة مركا إلهي ولي جاسات كو قال إلهي طريقة هذه وربة المامي وحويل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه أدون كيجو يمسو دوان وإسكما كي جعليسين شيء وأحب إلي مما افترضت عليه وح أن كجعلهي وح أن كفرض يلي وأدون كي يمسو دوان يا مجروي بمعنى وح كستؤت سميسه وح كفي عن وكفض لبدن إلهي نكجعل يا إنا لما يسترتوحوا كفرض يلي مثلا إلهي محنو كفرض يلي مركز صلاة الليلة شن صلاة صمة شن صلاة شن تا صلاة إنا لما يسترتو أود إيجا خد داشو أود وضوء يا أركانته ودي خشوع هذا آدي لها لشو أي إلهي كجعلها إنها تكون رك عمالنتي أو سنتك شن تا صلاة بإلهي أكتيس لك كالجعلها هذا هبين كاسون أنت هجناته قيام وتهجناته أو صلاة سبحات كسيحته دوقن ضبالات هاي إلهي أكتيس حن عم فعلين إلهي أكتيس فضل كمله حيا هبين كاسون إنها تهجناته وحكى فضل بدن هذا صلاة سوح شفي عنه كذا بل النبي قال كنوش شيء عليه الصلاة والسلام يريد نكي صلاة عشاء جماعة كنت كذا لأن جماعة وكم من كمال الصلاة بكمت هذه نفتر كاجو إن الدرينتين ما أنت جماعة كنت كتير صلاة الجماعة كنت كتير إلي كاجا في عنته وكاجا فضل بدن صلاة أتكلم آتو كتير سكون مد معه شو مدو عشاء نكي جماعة كنت كذا بوي وحلم إذا نين هبين كنسكي سورنا تاجنا فجر كنكي جماعة كنت كذا وحلم إذا هي نين هبين كاسورنا تاجنا في إله أكتيسة فرضكم ماشي وكتاجين فرضكم ماشي وكتاجين فيه مركا وحا أوه الرئية إذ إله يقول دوانيسو صلاة مركا الليلة وإن شنطة صلاة كامل وتكتا شنطة صلاة شيء كامل لو نقول كران صدح شيء وإن صلاة كست إسكا إلى لسه صلاة كست صدح شيء بي كادوني سائنا إلى لسه سئ كامل كوجو نقط ومد كوبانه وضوء هذا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة وضوء هذا وحلو جدا اسود ديارنت صلاة ويسدي هذين نقطه طهارة دي هذين نقطه استقبال القبلة هذين نقطه ماشي أتكتب كنيسة طهارة يعني شروط صحة الصلاة أردن وين التي مادين كامل كدكتي ويسد هذا وين قلب نقول أو ويسد كده داشيد أو ما رجعنا يسا طهارة دي كده داشيد ورك أتكتب كنيسة نفس الكلام أتكتب داشيد رفع عن النقضان أو ناكسن النقضان وسدا أي نقض خذوا زينتكم عند كل مسجد بإله إليه إن أدمارت إلهي بعد هو استاجي شيء dadka marka u tagaysid dharku qurux badan xidhaatid marka ilaahay hor tagaysidna aad wax duluf xidhaatid ilaahay ma jecla dharka uu qurux badan ee ugu wanaagsan ee aad jeclashahay inaad madax iyo madaxweynayaasha ku qaabishid Allahu rabbul alamin ku qaabil oo iscabtarin waliba marka iscabtariso isu udgoonaysiiso umurahaas oo dhan waxay kamid tahay tahsiinu wudu'i salat ka wudu'aha tan labaadna wa arkaanaha arkaanteeda rukuucaha arkaanteeda loo jeedaa ووامحي إن الصلاة دي كامل يشو وفاتحة دي سي ونكسن وأقرده فاتحة النفتر كذا ضد بدن وحجرة سكتوا كناي ولي قد أنصحن ولي اسم أنتوا يعني أنتوا صوبا لقي موسن ومن وداد مصلي ورنيه وبالغفير فاتحة أن إلهي كعب ذلك الصلاة الركن من الأركان ما صحبها من سوى غلط ما بيسوي دين وحي كمتها على غلطات كواوين بيكمتها دين تادي ركنية دي وين هذا جسا فاتحة هذه أقرنت هذه وين صح نقطة اللي له بثور استاجيسا هذا قيام كسي وناكسن ركوع دي سي وناكسن سي كاملة أرنت الصدحات مهم كأ أنت بدنا نسكا قاعد بدحين نوامحي خشوعها
salaada khushuuceeda inaad ilaaliso oo qalbigaaga xaadir uu ahaado oo markaad ilaahay hor istaagto aad u hor istaagto adoo rabbi hortaagan maxaad hortaagan tahay rabb alcaalamiin baad hortaagan tahay jalla jalaaluhu wa azima sultaanu walaa ilaaha ghayruh ixtiraamkii ugu badnaa taqdiir iyo tacdiim baa lagaa doonaya rabb alcaalamiin baad hortaagan tahay marka waa inaad khushuuc yeelataa weeyaan oo waxaad aqriyayso aad garanaysa oo macnaheedii aad dhuuxayso ee iska aqriyo carabka ku dureeriyo qalbigaaguna meelahaas dukaamada iyo suuqaqa ha warwareega maaha marka arrintaas waxay kaaga baahan tahay dadaal horta inay kaa maqan tahay waa inaad ogaato in badan iska tukanaa maahan isma weydiina ma naga maqan tahay mise maya dadkii salafu saalixiinta ahaa qaarkood waxaa ku jiray baa layidhi markuu salaada galo xataa haddii la weydiiyey kan garabkaaga ku tukanayay kumu ahaa garab ma fahmayo ma garan karo lianna waa ka maqan yahayba caalamkan oo dhan oo qalbigiisa waxaa daboolay cadamadii iyo weynaantii ilahay baa dabooshay imaamu lghazali raximahullah isagoo arrintaas sheegay wuxuu yidhi hala yaabin leanna waxaan aragnay buu yidhi dadka adduunka marmarka qaarkood ay boqorada ay qaabilayaan boqor markuu qaabilayo oo ballan la leeyahay amiirka iyo boqorka iyo marka la weydiiyo kasoo baxo haddii la weydiiyo la yidhaha meeshaasay u ekaydayo yaa joogay iyo amiirku dharku xidhnaa iyo boqorkii ma garan karo leanna haybadiisiibaa qalbigiisa madoobeynaysa wax ma kala ogaba haybada iyo waqaarka iyo taqdiirka iyo xushmada ayaa qalbigiisii daboolay maba kala garanaya kaana waa makhluuq buu yidhi fakayfa billahi caza wajal ilaahay cadamadiisa iyo weynaantiisa bal ka waran ninkii hortaaga khushuuca waa khuduuc baa lagaa doonaya marka nebigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam yani ninkii wuxuu yihi xadiidkii saddexdaa sheegayay ninkii salaa farad oo maktuuba ah saddexdaas shay ilaaliya khushuuceeda iyo rukuuceeda iyo dahuurkeeda ilaaliya ilaa kaanat waxay noqotaa salaada kafaaratan lima qablaha min adunuub wax alla wixii dunuubahe uu galay baa ilaahay kafaara god uga dhiga oo dembigiisiibuu ku dhaafa waa laakiin inaad saddexdaa shay ilaaliso marka waxaan uga jeedaa walaalayaal alariiqu ila allah ariiqa ilaahay loo raaco kow waxaa ah inaad faraa'idka aad kaamil yeesho ka bacdi muxuu yidhi walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxibah addoonku markaas uu faraa'idka kaamil yeelo kadib kama zuulo mid ii badsada nawaafisha iyo sunanka aan waajibka ku ahayn oo hadduu iska daayo aan daalac loo raacayn xataa uxibah ilaa aan ka jeclaado bimacnaa ku ekaysan maayo oo ku joogsan maayo faraa'idii wuxuu kororsanayaa sunankii salaada hadday noqoto soonka hadday noqoto zakada hadday noqoto zaka unbaa laga rabaa laakiin sadaqaad kaloo fara badan buu la baxayaa soo maad garan shay kastoo ku waajibay wuxuu leeyahay jinsigiisa oo nawaafil ah salaadii shanta salaad kaliya ma aha qaar buu ka horreysiinayaa salaad qaarna waa ka dambaysiinaya qiyaamuleyl buu tukanayaa laba yani wuxuu tukanayaa salaatu duxa wax la yidhaha hadda jidhka insaanka qof walbaba wuxuu ka kooban yahay 360 xubin buu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam xubin kasta sadaqa laga rabaa 360 ma la bixi kartaa maalin kasta ma bixi karta laakiin maxaa ka kaafinaya buu nabigu alayhi salaatu wasalaam wayujzi'u min dalika maxaa ka kaafinaya rakcataani yarkacuhumaa min adduxaa laba ragco oo salaatu duxa uu tukado ayaa waxaasoo sadaqaa ka kaafinaya marka waxaa uga jeedaa sunanku badsanaya ilaa ilaahay uu kaa jeclaado ilahay hadduu ku jeclaado faidaa axbabtuhu haddaan jeclaado kuntu waxaan ahaadaa rabb lcaalamiin wuxuu leeyahay waxaan ahaadaa samcahu aladii yasmacu bih wabasarahu aladii yubsiru bih wayadahu alatii yabtishu biha warijlahu alatii yamshi biha walain sa'alanii laucطiyana walain istacaadanii laucidana waa marka koobaade ilaahay xubnahaaga oo dhan waa meelaha ilaahay laga caabudo iyo meelaha ilaahay laga caasiyo waa maqalkaaga iyo aragaaga iyo adimadaada luga iyo gacan waxay noqdaanba intaba anaa ahaadou yidhi rabbulcaalamiin culimadu waxay dhaheen macnaheeda ilaahay wuxuu waafajiyaa xubnihiisao dhan daacadiisu waafajiyaa xumaatadana waa ka ilaaliya bimacnaa aragaagii ilaahay baa kula jirayo waxunba ma arkaysidba ma rabtid waxaan qaaqaawaniyo waxaan kada iyo maba ilaahay baa ku nacsiinaya waaye ilaahay baa ku nacsiinaya indhahagii baa ka laabanaysa dhagihii waxun kuma dhagaysanaysid iyo muusiki iyo heesi iyo balaa baas iyo waxaas dadka jecel yahay ilahay waa ku nacsiinayaa mabad gara gacmahaagii waxun meel ma aadayaan lugahaagii meel xun waasu lugaynayaan
markii ilaahay saas cismada kuu siiyo ilaahay saa kuu ilaaliyo kadib maxaad noqonaysaa waxaad gaaraysaa darajat alwilaaya oo darajo waxaad gaaraysaa ah wala in sa'alanii marka hadduu waxay weydiisto la uctiyanna waa siinaya wala in istacaadanii hadduu iga magangalan la uciidanna ilahay waxaad weydiisatay markaa wuu ku siin waxa la wuxuu doona ha noqdo waxa la wuxuu doona ha noqdo waxaad ilahay weydiisato waa ka helaysa horuu kaa siinaya ilahay maanta inta badan waxaan u laanahay oo leenahay waa ducaysanaa wax lagama aqbalo waa ducaysanaa khaladka xaggeena waay وإلا إلهي أدومديس واجبه ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله إلهي واكو أجيبه هكو أجيبه هدنا إلهي وح عديد كوا مجري إلهي شيء وفضل أما شيء وأرد مجري كل شيء عند الله سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا كل شيء سهل وإلهي يكتس وح إلهي كوا أرد ملك مركا يقين بلغا قبحي كو من قلبي قاعد يقين ربأ ay ka soo go'do inuu ilaahay kulli shay u qaadir yahay in allah ala kulli shay qadir waxba adag iyo waxba sidan iyo waxba kana hadii arintaadu haday dad gacantii ay ku jiraan dadkaas nawaasidooda ilaahay bay gacantiisa ugu jiraan ilaahay baa maamula iyagu ha ku maamuleen haday rabaan waxa ilaahay baa si maamula iyaga wax ma qaban karaan marka adigu markaad ilaahay barido xaajadaada iyaga sandul qasab buu kaga dhigayaa inay arintaad uga baahnayd ay ku siiyaan kuma badili karaan haddii wax ku soo hujuumaana oo lagu dulmiyana ilaahay baa ku magan gelinaya nin baa wuxuu lahaa baqal buu lahaa baqasha sida taxi oo kale wuxuu ka dhigay waa ijaara jiray dadku ku qaadaya min xaafad ilaa xaafad min magaalo ilaa magaalo arinta sheekadaas ibn kathir baa sheegay rahimahullah fi tafsiri nin baa ka soo kareystay suu soo socday buu wuxuu yiri magaalo kale waxaan yiri warwarniyo waxa iga doonaysa baqasha iyo wixii maalaha ay dusheeda saaran qaado iska kayda kaasoo war doqoniyo baqasha iyo wixii maalaha dusheeda saaran ana balahe taa waa dhamaatay inaan gudilo ma raba taa hadda isku ma haysano taas ana yeesh laakiin adiga dilka ka raba dhiiga ka raba masaasa war ilaahay ka cabsooday xul hadaba hadaa diiday inaad disho mooyee bal furso isi laba rakac aan tukade furso isi waayahay dhaqsana wuxuu yiri markaan salaadii galay Allahu akbar oo faatixadii aan akhriyo faatixadii bamale faatixadiina waa loo nasiintu kullu shay arabkaygi faatixadii hatta waa qaban waay waa gartiis min hada min dil la agtaagan hada lagu dil leeyahay xuu kala garan faatixadii waa keen waay xaaladda marka aan ku sugnahay sida aan ahay ayaa ilaahay arabkayga aayadan ku soo riday ilaahay baa uu siiyay aayadaas horuu yaqiintiisuna min dhaafay ahay إلهي بآيات وفي آيات وفي سورة النمل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يجيب المضطر إذا دعاه كي كان مضطرقة مسكين كان دبتيسن كي أجيبي الله رب العالمين ويكشف السوء ما تدن فيلي هو الله كلمة دا آيات دا مركي آن أغريي بويري والله مردمان آيات دا سعرب كي كمردمان إلا خرج من فم الوادي فارس تبقى أفكي سوى حكا صوبحين فرس سارا أو ورن وتا أو دمديدنا لابتك قبل أختيو نكي دليغا كو نركبنا ملف دعيبا نكي كما نفع وعلمت مركزان اسكو دوبي بويري نكي فارس كاها وأن إروني بالله عليك أن كقول داري كما تايكن إلهي أقبض بادي مركز شويرة أنا وحانا أنا عبد من يجيب المضطر إذا دعاه سو أديك كان يجيب المضطر سو ما دويديسا أنا أدون كيسان هاي وأنا تقول له قرن ما لا مالك كي إيه مالك سعود ولا إن استعاذني لو عيدنا مركز ولا ليال هذا الكلام وإذا كل ديري إن بدنا وسيف الدين أنت أنا إن بدنا وإذا كسوضها وأوجاي horta bal ku bishaaraysta intaad fadhideen insha Allah ta'ala ajir baad heleyseen malaa'iktu weydiin duceynaysa khayrna waad ku jirteen
oo naftu khayrka inta badan ma jecla walakin waad ku qasabteen nafti waad ku qasabteen khayrkaas aad ku qasabteen ajirkeeda leeyihiin khayrkeeda leeyihiin meel ka fiicanna ma jirto buyuutullahi iyo meesha malaa'igtu ay joogtay khayrka ilaahay lagu xusayo waa suuriyada malaa'igta way isu soo habar wactaa haddii hada lafdigaasi asaxo way isu yeerataa way isugu timaadaa nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam horta malaa'ig baa daris la ahaydeen intaa ku bishaaraysta qawli tan labaad walaalayaal tawfiiqda allahna waafajiyo hadalkayga waa soo khatimaya daacada ilaahay aan ku dadaalo rabbiga saan ugu dhawaan lahayn لأن يعني كل جين باهذينه وإلى الله حاجو يمكن لنا وبيد الله وحلا واحد وباهن تهي إلهي بيك عن تسيكو جرا هرت تاوين ذوات كل جين نوم البابا قلبي يسوي حكبه حاجو ينفر بدن وأن أحلس من ولي متى مسماه ومتى مسماه حاجاتك يا هي حداد إلهي غير كيس أم ليسيني كوهي weligaa meeshaasaad galgalanaysa laakiin maalinta ay kaa soo go'do aniga xaajadayda waa biyadillah asbaabteedana aad qaadato rabbigaana aad u badhigto laba ragca intaad tukato waqtiyaha mujiib waqtiyada ilaahay ducada uu ajiibo aad ilaahay weydiisato ilaahay xaajadaada waa ku gudaya ilaahay xaajadaada waa ku gudaya bixasbi yaqiinik yaqiintaadu inta ay tahay baana ilaahay kugu siinaya marka inaan taa ku dadaalo caruurteenna aan ku tarbiyeyno aanu caruurteenna barro كان قودية كان وحشية كان بربارية إنه يهي الله ربهم عد بربارين كرتملة عد وكلاسين كرتملة دولة وحمة تربية يا إنجليز وحوي تربينا حكومة تربية ذا ياهي ياكو بربارين لا أبها ولا هويدا ولا إنجليز ولا مريكان ولا أي شيء كان كو تربينا هي كو بربارين يا إيكو إلالين يا إيه وحكا سكوسين يا هو الله ربك سجئنا جعلاته أو أنا كأفو الرحروت من الصغر شيكا لإيش هي نبى المه سير وحكو بربارين جري ومصر مشوا وحو إلى هذا يقول الله حبيبك حبيبي الله المه سير وحكو بربارين هذا حبيبي الله كيان جعل الله والمير مركي وأفبرت كأها وحكو بربارين من حبيبك حبيبك وكما الله حبيبي الله تيبو كتربيه نكي بابو كودي نكي ويل كدلي اي جرحهم باقبته او شقدي لواي او غريغا ساحد يركي وحو اركا هدي يقول ابيه سو جرن او ددكو ايمانيو markay si tagayaan baxay leeyihiin Allah yashfiik Allah ku caafiyo subhanallah yaro fidradiisu saliimahay wuxuu yiri kanay weydiisanayaan ay leeyihiin Allah yashfiik وكما سو حبيبك يا جماعة الله ربي حبيبي سو ما ها ومحو أبهي وعافين واي أنا وإنان ربي جاي حبيبك يا وإن الرسالة أدرسها ورغبا أدرسها والله يا أبهي عافي هو يدرس بكير إلا وإلا ورق يدر كال إلى قر ورق أفر فربرد بو قري يا الله يا حبيبي أبهي وجريني وإن العافسة وحيد بوصدنا وإن ذي جيسة وقصد عليها هو يدي اسم أقانو حي وجهدي مسجد هيدي على كل حال وهي هبيتي وكو جينا يا بوصد رسالة إلى الله إلى بيكو سعتها رسالة إلى الله حبيبي من فلان ويل كيرا بوصدي وراغي مركي أي خلدي بوصد إهلال وهلا ويناتي رسالة إلهك الله كسعت حينهن أرنا كبح كرنمه بل شر وينها لغط ولا شيء ولا شر وراغي ولا فري المير يروح على أركي فرق المير على أركي ولا سورة قالي ولا أجادي ماشي كتب من العنوان كي باكويا ليه قرقي باللي قرقي هذه اللي كانوا جرن هي المهان ولا محاد قرت الله حبيبي بنو قرت إنه أبه يعافي ماشي مركا ارتمالتي كو حكتا جورنال كي شيكدي يا رسالة دي ويلكي لغو سو قري دولتي يا أوقافتي يا وزاردي أنت وزارده أنتينا أرنت كبا فريسة نين أختر وين أو أختر له بمركو جورنال كأغري صوحي بسوا عربي ونكي جرنا قاري ولكن سبتالكو جايز لا تيحكوا حد يليسين لكان أنا إن شاء الله داويني إله بعافنا لكن أنا داويني هل كان مجيب فيا دولة هذه انتماء دوحاتنا هن دكتور فلان ولا يقانا عنوان كسؤال كاوي عدي يقول ما كرتم مل نين كان مسكين بوها وحد دكتور كتجاو موسى نايس دكتور عجائب له أيام أو بريفت أو خاصة
ayaaba la seexiyey sariirtii baa la seexiyey islaantii wixii dhan daawadiisii hawshiisii baa u bilaabatay dawladdii baa isku dhexdhacday wasaaradii awqaaftaa lasoo diray waxaa la yidhi meeshan ilmaha wax loo qabto waxaa la yidhi khalaas dhakhtar hebel baa arrintii la wareegay waxa kale idinku qabanaysaan idinka waa ninkii alxamdulilah ilaahay waa caafiyey reerkii lacag bay ka dhargeen khayr badan bay ka dhargeen kulli maxay ku timid allah xabiibii xabiibuka man allah saas buu ku tarbiyey huwa allah yafcalu maa yashaau biqudratihi shay dhammaantiis qudradiis ilmaha marka arrimaha aanu ku barbaarino oo aan ku intay yar yihiin ha lagu ababiyo si ay ugu weynaadaan oo rabbigooda ay jeclaadaan oo taacada iyo cibaadada iyo dugsiga iyo qur-aanka yuusan wax lagu qasbay noqonin waxay jecel yihiin ha noqdo taasna ilaahay baa laga helaa guryahan aan ku dadaalna insha allahu tacaala dumarka walaalaheen waxaan idin leeyahay khayr badan baad haysaan yani xijaabka iyo asturaadda aad dadkaad kula dhex jirtaan dadkan haafiliinta aad ku dhex maraysaan anigu waxaan qabaa inay tahay arrin aad iyo aad u weyn waa jihaad ficli ah oo aad idinku samaynaysaan liannahu yani wax afka laga sheegay ama masaajid la jooga makada bay ka duwan tahay wax ficlan aad u samayso banaanka aad la marto waa arrin aad iyo aad u wanaagsan dhulka aad maraysaan iyo geedaha aad ag maraysaan oo dhan baa idin ducaynaya marka xijaabka ku dadaala oo khayrkaas ku dadaala ogowna insha allah inta aad muxajabada tahay ee aad asturan tahay ilaahay xifdigiisaad ku jirtaa laakiin waxaa muhima gabadha muxajabada ah ee iyadu cawradeeda asturtay ee isqarisay iyo wiilkan dadaalaya ee musalliga ah ee daacada ilaahay masaajidadiima waxaad ogaataan shaytaanku cadow laduuda waaye insaan oo dhanna waa necab yahay laakiin idinku necab yahay hana u qaadanina ibliiska iyo junuudiisu in shaqadoodu ay tahay kaliya inay dadka baadiyeeyaan qofka ay kari waayaan inay baadiyeeyaan jasadiyan inay u dhibaan bay isku dayaan jir inay ku dhibaan oo jinni iyo balaayo kugu soo diraan oo balaayo kaa dhex qaylayso oo isku kaa dayayaan waanaad aragteen baan u malayn in badanna waan arkay gabdho shay iska caadi ahayd markay isxijaabtay waxunbaa kusoo degaya waxunbaa si bay noqonaysa maxaa marka lanooga baahan yahay taxasun baa lanooga baahan yahay xirsi waa inaad had iyo goor dhufays ku jirtaa cadowna u garataa shaydaanku inuu ku yahay dikriga ilaahay laazim kalimat bismi illaah afkaaga ayna ka maqnaan guriga markaad galayso markaad ka soo baxayso gaari markaad fuulayso ay shay liannahu huwa yaraakum huwa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum inkuma aragtaan isagu waa idin arkaa laakiin iyagu maxay ku daboolmayaan oy ku indhabeynayaan markaad ilaahay xusto waa marka adkaarta aad maqasheen ee subaxii la akhrisanayo ee galabtii la akhrisanayo waxa weeye waxay ku yihiin xisni iyo ilaalo ayaa shaydaanka iyo junuudiisa ay kaaga noqonayaan adaana cid kasta uga baahi badan nabiguna meel cidna nagama tegin wax kasta adkaar buu noogu sameeyey subaxii adkaar baad akhrisanaysaa fara badan oo ilaahay magangalka aad magan galaysaa galabtiina sidoo kale awqaada kala duwan xaajaadkaaga markaad gudanayso khaasatan musqusha markaad galayso iyo markaad ka soo baxayso markaad dhar dhiganayso intaba waa inaad ilaahay xuskiisa afka carabka ku haysaa lianna ibliis iyo shaytaan marnaba kaa yani kuma daybaan had iyo goor marnaba qafla kaagama jiraan waxay isku dayayaan bar un inay ku haleelaan haddana waxaa ugu daran sida dadka mutakhasisiinta ay noo sheegeen waqtiyaha insaanku uu qaflo galo ama uu janaabo yahay ama xaalata tahaara ay ka maqan tahay ama uu xanaaq fara badan ama argagaxis badan ama fazac uu jiro meelahaasuu la haleelaa marka had iyo goor waa inaad intaas carabkaaga dikriga ilaahay aad ku haysid guriga waa in had iyo goor qur-aanka ka shidnaado waa inaan xalaqaad samaynaa oo malaa'igtaan isugu yeernaa leanna markaan guriga fadhiisano oo qur-aanka ku akhrisanayno axaadiista nebiga ku akhrisanayno malaa'ig baa soo gelaysa shayaadiintuna waa ka cararaya tawfiiqda allahna waafajiyo sidaasaan isku waalinaynaa wabaaraka allahu fiikum waakramakum allah wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullah